بسم الله الرحمن الرحيم. habeen wanaagsan iyo sanad farxadeed ayaa waxaanu leenahay afar kooxoodba. waa kuwa ugu horeeyay waxa weeyaan martidiina sharafta leh ee nagala soo qayb gashay xafladan ee hoteelka Jubba caawa noogu timid. waa kooxda labaad waxaanu leenahay sanad farxadeed iyo habeen wanaagsan iyo ciid wanaagsanba dhammaanba daawadayaasha qaayaha leh ee nagala qayb galaya caawa xafladan telefishanku suubinayo ee naga fiirsanaya hadda telefishanadooda. mar saddexaadka waxaanu sanad cusub ilaahay haynoo wanaajiyo oo wanaagsan aanu leenahay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed mar afraadkana ummadaha adduunka oo dhan. shukri maxaad ku darlay leeyahay dhammaanba daawadayaasha qiimaha badan ee hawada naga fiirsanaya habeen wanaagsan marka hore marka labaadna sanad wanaagsan iyo ciid wanaagsan intaba. waa tahay waxaan filayaa caawa waxaynu sagootinanaa sanad. waxaan soo dhawaynaynaa sanad cusub. waxaan sagootinanaa 10 sannadood oo isku buuxsamay. waxaan soo dhawaynaynaa 10 sannadood oo soo socda. waxaan sagootinanaa sanadkii 1989 oo la tegay uguna dambeeyay 80-meeyadii. waxaan soo dhawaynaynaa sanadka 1990 oo isaguna la iman doona 90-meeyadoo dhan. 90aadka waxaan leenahay oo intaas inoo raaca sida qaalibka ama alaaba dadku u badan yahay waxa loo xafladeeyaa sanadka cusub ee soo socda. kii hore waa la iska ilaawaa laakiinse qof walba dib iyo khayr wixii uu kala kulmayba isaga le waaye. waxaanu leenahay ilaaheen ma ilaawi karno. waa in la ducaystaa. waa in la yiraahdo mar walba ilaahow dhibta naga saar. aamiin dhaha. aamiin dhaha. ilaahay waxaan ka baryanaa inuu inooga dhigo sanadkii bashbash iyo barwaaqo iyo raxmad iyo caafimaad iyo cilmi. ducada waa laygaga wanaagsan yahay. ilaahay inta khayr loo dhan hayna siiyo. aamiin dhaha. ilaahay shar oo dhan haynaga duwa. aamiin dhaha. waa tahay intaasi markaynu ducaysano caawa xafladan telefishanku ugu talagalay sanadka 1990 waxaanu jecelahay inay ka koobmaan heesa aad u macaan oo aanu jecelahay caawa inaanu idin soo xulay fanaaniintii codka baxsanayd ee qaranka barkood. waxaanu idin haynaa tartanadaasi waxa weeyaan saaxiibayaal waa intiina martida ee Jubbana la fadhida. number baanu idin siinay. number dadka qaar baanu number siinay. annaguna numberkaasi waanu haysanaa. numberkaasi ayaanu u yeedhanaa. deetana su'aal baanu weydiinanaa. deetana waxa la siinayaa abaalgud hadduu ka soo baxo. shukri baan nagu wareejinayaa tartankii isagoo inoo furmaya. waad mahadsantahay cawke. xafladan caawa mudanayaal iyo marwooyinba waxaa ka buuxa qodobo fara badan sidii uu cawke hore idinkugu sheegay oo maaweelo ah. laakiin maaha muhiimaddu aan u suubinayno in aad daawataan oo keliya balse waxaanu jecelahay oo aan idinku martigelinay in aad nagala qayb qaadataan oo barnaamijka aad qayb ka mid ah soo gashaan dhammaantiinba. haddaba waxaan jeclahay inaan soo qabto lambar ka mid ah lambarrada aad haysataan oo dadweynuhu ay haystaan. lambarkaas waa loo yeerayaa. halkaan buuna imaanayaa. waxyaabaha aan warsannana waxaan jeclahay inuu sida ay tahay uga jawaabo. waa tahay lambarku waxaan jeclahay inuu noqdo waa nasiib. waxaanu soo qabannay qofka haysta lambarka 87 waa 87. qofkii haysta ha noo yimaado lambarkaas. waxaan ka xumahay in aad soo dahday laakiin
magacaaga waxaan filayaa inay dadweynuhu ku wada garanayaan waa maxamed axmed xaaji oo ka mid ah wariyaasha idaacadda iyo telefishinka nasiib wanaag lambarkiisii waxa uu noqday kan u horeeya haddaba maxamed waxaan jeclahay oo halkan lagaaga sii daynayaa muusigaas waxa weeye hees ka mid ah heesihii qadiimiga ahaa ee dalkeenna laga qaadi jiray haddaba waxaa lagaa rabaa in aad garato muusigaas heestii uu ahaa kow marka labaadna hobolkii ku luuqayn jiray labadaasba waan kaa rabaa maxamed dhegaysta marka hore muusiga su'aashii haddii aan u soo laabtay la weydiiyey jawaabteedu waa sida soo socota anoo filaya inay noqon doonto walow musigu uu iga horreeyey oo markii lagu luuqayn jiray ay dhici karto inaananba dhalan hase yeeshee haddiiba aan marar badan maqlay markii aan xoogaa soo kobcay muuqaalkayga iyo da'dayda isma laha dad badan baa xoogaal u ah heestaas musigeeda la garaacay maadaama aanan jirin laakiin aan dhegaysan jiray waxa ay tahay heesta la yidhaahdo banaadiri waxaana ku luuqaysa fanaanada magool iyadoo weliba fanaaniin badan oo Soomaaliyeedna heesta ay qaadaan rag iyo dumarba laakiin codka aan sida gaarka ugu dhageysto waa Xaliimo waana mahadsantihiin waad mahadsantahay maxamed u kaadi weli kuma dhamaan waad gudatay waajibkii aan ku warsaday laakiin hal waxaan ka rabaa hal bayd oo heesta kamid ah inaan noogu luuqayso run ahaantii codkaas kuma qaadi karo ay u adag yahay laakiin codad kale ayaan qaadi karaa waxaan si jecelahay in mar kale la iga dhigo waxaa jira oo isagama yeerin dadweynaha lambarada aan siinay haddaan xujeyno haddana waxaan ugu talagalnay inaan xujadii ka rogno dadweynaha haddaba waxaa jira hadiyado aan ugu talagalnay oo ah lacagtaas waxay u dhaxaysaa 5,000 ilaa 10 shilin lambarada lagu helaayana waa 1 ilaa 5 iyo 10 waa lambarada baqshadaha aan hayno oo lacagta aan ku ridnay lacagta cadadeeduna waa saan idin sheegay 5,000 ilaa 10 shilin haddaba maxamed waxaan jeclaan lahaa abaalmarintaadii adoo jawaabtii aad nasiisay ka duulayna in aad lambarka aad rabto 1 ilaa 5 iyo 10 ah aad qabsato wixii kugu jirana nasiibka leh lambarka buuxa hal eber baqshada 10 ku taalo waxa ku jiraan rabaa kulay waa culustahay waxa ku jiraba waa culustahay laakiin waxaan jeclahay dadweynaha inaad tusto oo aad furto wixii aad heshay ku furto hortooda culayskeeda ayaan aqaan maadaama aan ka mid ahay dadka ugu lacagta jecel dadka waa qiyaastii waa hagaag iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 waa cilad waa ka yartaa intaan filayay markaasi waa ilaa adugu 700 meelahaas waa tahay waan filayaa abaalmarintii nasiibkaaga kuu soo qabtay inaad heshay waxaan halkan martida